الله الرحمن الرحيم السلام عليكم guud ahaan umada Soomaaliyeed meel walba adduunka caalamkiisa kala joogtaan waxaan ku baaqayaa shir jaraa'id ugu horeyn horta waxaan idinku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka waxaan ahay magacaygu Nimco Cabdiwahaab Shirdoon waxaan ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta muddo badan oo waqti badan leh waxaan ka mid ahay shaqaalaha sida rasmiga uga hawlgala wasaaradda warfaafinta مدرويد واحد عدي إن قدوميها برلمانك دلكينا جمهورية الصومالية قدومي خليف إن أي سكول عين برلمانك إن تاس أو هاي سنها دلكينا يدكينا إن أي واحد عادة سكر عضو أو لقيه شينكر أو عقبضنا هين أو ضد ولا أو إهل أو غرابة أو صحابة أو سياسة وداقة واحد عدي إن معلمها كم إذا وقت قاسا إن فيسبوك يجا عن كسو عبري إن قدومي خليف عن سور كيس الصادقين والله بوكي جريء أو وحلا قدي إن عن جف يغوح مال كدعة إن شقادة دي وسارد اللي يجيب اللي يجوسوا عليه مجا يبكتر كي أصلا الصعدة أو اللي يجوا هنشبيه اللي يجوا جراحيه إن أتجف أتكون عضي أتقرن كمال كجد عضي كدي وحيلا صح الله إن غيبت وسارد أو أقسمه وجوه الرئي وزارة ورفافنتها وأنا ككلنا أنا كو احترامي إن بلنتي وسيرك أجسمها جود إيجاد تبي أو شرف لا إتجس له شرع لا أو ناكسن أنا أقول كل ماي حفيز كيسة مددي ويقبتها إيه وقت ويقبت بلنتها مركي أنا تجينا وحو يجوا هالشبي أو وشواب يجوا سي فيسبوك أجا وحن أتصور دي قصة ما وقتها إنه يهاي إن خلد حيرنا وكقبنا يوم وحن كل أجا سموان ما حسنت مرة ما يستهدى الكي إن كدي مركو أودا ما يستي أنا نقول شواب تيجي سي إن maxaad igu haysataan ku uri sawirka gudoomiyaha ayaa soo dhigtay xusbi ayaa si aad u taageeraysaa bareera adigu amar taagleen waxaan ku ma dhamaysatay ha xeerka aniga ay qabanayay aad igu ganaaxaysid igu haysatid Facebook-gayga anigu da inaan madaxweynena maan caayin qarana maan caayin qaran jiritaanka Soomaaliland kama soo horjeesanay xeerka aad hor dhigashay aad igu ganaaxaysid maxaan ku jabiyay baan ku uri aad igu qabanaya de Facebook-gayga ma mid anoo shakhsiyeed iyo page-kayga aanu leeyahay aragtideedii xorkayga aan ku cabirayo iska tag witir aniga taas noo taalaabay guuri waa si xawad mahasanta aday ku taalaabaan ku waan iskaga soo baxay waxa ila soo hadlay xalay oo ahayd habeenkii ii xigtay ee aan shaqadayda anigu aan de qarankayga waajibka igu lahaan u gudanayay in qaybta aniga aan hoostiga maamulka aan hoostago inuu amar aniga isoo siiyo ah nimco shaqadii aniga madaxdii aniga iga sareysay wixii ana ay soo siiyeen in aad nimco gaarsiiso in shaqadii laga joojiyay waxaan dib ula xiriiray in qaybta shaqadii shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee u qaabilsan waxaan ku warqada aad igaga eriday deecadeynteedii baan ka rabaayo ileen afka kama ihi ina yar oo aabaheed adbinaye warqadeedii cadeynta sharciga wadankan qaranka waxa yaala sharci baa yaalo qaynuun baa yaalo maxay wadda lagu kala hogaye isibaan ku warqada cadeynta de warqada cadeynta idinka baahan aad igu eriyasaan ileen shaqadeeda awoodida aad u sheegan sida iga joojinaysaa marka Facebook-gan ku wada hadlana anaga iyo agaasimihii iyo intayada xafiiska iskula joogtay waxaan go'aan ku gaarnay in shaqada aad eriskaga tahay in hay'adda shaqaalahana warqadaada aan u gudbinay marxabiyo gudoon baan ku uri saasan anagu maamulka igu aan isku kay war dambeysay hadaba waxaan ku sheegayaa Maxamed Yuusufow hadii tan amar taagleyn iyo karbaash iyo kibir iyo taagsi la iskugu sameeynayo oo maxay toolay kibir qofka iyo adiyad iyo waxaan xeer aan qabanayn single iska gelinayo horta in cali koore wasiirka ku maamulay u shadabada kala dhaca ayaa maxay toolay oo qarankani xeerkiisa sharcigiisa uu qaban lahaa gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye khaliif ee codka aqlabiyada ee saxda deegaankiisa dalkiisa ay ku soo doorteen ay maxay toolay kaga raali yihiin dalkiisa iyo dadkiisa cod kartii aqliba ku soo baxay ee odaga saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland de hadii maanta TV-ga qaranka uu ka caayo wasiir Salmaan Cali Koore isagoo aanu arka inuu xeer jabin tahay hadii cid xeer lagu karbaashi cid xeer la dhacayo oo cid xeer uu qabanayo oo maxay toolay waajibkeedu tahay de Salmaan Cali Koore xeer qaban lahaa mid baan ku sheegayaa de la yaabna mitin Maxamed Yuusufow Salmaan Cali Koore inuu dhagada dabada kala dhacaya tahay oo la yaab matiyo kula yaab maayo ana de dhagada ka qaadan maayo aniga la dhacdo kibri adiyad aad ila soo doonatid waxaan ka rabaa xeerka shaqadayda joojinay ee TV adigaga joojisay TV-ga anoo shaqaale barmala
iyo awoodda iyo kartida intaa leega ku gaarsiisay in aad shaqadaydii joojisid adaa cadayn doona waxaana ka raba xeerka dhigaya shaqaalaha Facebook isticmaala ee xorta ah ee muwaadinka odayga saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Khaliif baad sawirkiisa soo dhigto waxaan ka joojinayaa shaqada xeerka aniga adigu talisid ee aniga i qabanayana waan kaaga fadhiya haddii cid xeer qabanaysi dalkan cabudin iyo xeer iyo sharci uu qabanayana waa ka jira garsoorkeena iyo dalkeena qof walba aqoon buu leeyahay waynu naqaana in cali koorana mid baan leeyahay waxa ka khaldan shaqadii uu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dalkeena ku soo igmaday hogaanka ummadda madaxweynaha mucaarad iyo muxaafid madaxweynaheena mudane Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaheeni lama diidana mucaarad iyo muxaafid isaga madaxweyne ah ummad buu ku soo doortay Salmaan Cali Koore uu ku yiri ummad iyo institution maamul buu ku yiri bal waxaan ku xasuusinayaa haddii aad adigu isdhaafsan tahay wadankeena sanadadii ugu dambeysay COVID-19 baa haystay oo amarda Ilaahay ku yimi lacagtii ugu badneed ee wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta ummadda hooyada ballimataani bahadha mal degan lagu wacyigelinayay idaacadii qaranka aad ogto oo fadhida oo kaaga baahan in maanta hooyada aad wacyigelinta inaad gaarsiisid xanuunadii COVID-19 laba waaweyn baa dalkeena qayb libaxla ka qayb qaatay oo wasaaradda caafimaadka ku mahadsantahay iyadu u hagar baxday shirkadda Telesom baan ogno hooyada dib hadda maray ka dhageysanayso kaarkeeda Telesom farinta caafimaad bal wasiir baa ta madaxweynaha ku magacaabo ummad baa lagu magacaabo mas'uul baa tahay hantidii qaranka ee ummadda lagu yiri u shaqeey halkay martay barnaamijyadii ugu lacagta badnaa budgetka ugu lacagta badnaa ee hay'adaha ku soo gaarsiiyeen ee ahayti maxay toolay wacyigelinta tii maaliyadda ka soo ugu soo dhacday wasaaradda halkay ku dameysay idaacadii qaranka ku baahan oo fadhida maanta oo ogtahay tahaysata oo maanta aan wacyigelin aan haysan dalkeeni hooyada haw degan bari degan galbeed degan ay kaaga baahan tahay marka waxaan oran lahaa de Facebook in lagu mashquulo profilkeeda waxa uu qurux badan madaxweynuhu wuxuu idin amray in ummadan daacad u noqotaan aad u shaqeysaan taasaana idin khusaysa maxayisuna waxaan kugu celinayaa laba mid oo iskaga ka khaldantay mar labaad in adigu madaxweynuhu ku soo magacaabay shaqo qaran oo ummadana ku riday institution wasaaradda ku diray iyo inuu ku yiri inaan profilkayga laga soo magacaabay oo profilka nimcashir doon lagu yiri sida miina baarista sida ugu wareeg anigu ma yeelayo waxa sharciga iyo dalka iyo dadkaba aan u oolin qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba guul iyo gacan wanaagsan iyo xeerka oo guuleystay mar walba qarankeenu yahay assalaamu calaykum Allahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka caalamkiisa kala joogtaan waxaan ku baaqayaa shir jaraa'id ugu horeyn horta waxaan idinku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka waxaan ahay magacaygu Nimco Cabdiwahaab Shirdoon waxaan ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta muddo badan oo waqti badan leh waxaana ka mid ahay shaqaalaha sida rasmiga uga hawlgala wasaaradda warfaafinta muddo dhaweyd waxa dhacday in gudoomiyaha baarlamaanka dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Khaliif ay isku dhaceen baarlamaanka taas oo ahayd sunaha dalkeena iyo dadkeena in ay wax caado iska dhacdo oo laga heshin karo oo caqabad lahayn oo dad walaala oo ehel oo qaraabo ah saxaabo oo siyaasad wadaaga ah waxa dhacday in maalmaha kamid ah waqtigaas inaan Facebook-gayga aan ku soo cabiray gudoomiye Khaliif aan sawirkiisa soo dhigay walay buuki gareeyay oo waxa laga dhigay inaan gaf iyo wax meel ku dhac ah in shaqadeedii wasaaradda la dib laygu soo celiyo magacayga iyo picture-kii oo isla socda oo laygu hanjabayo laygu garaaxayo in aad gaf aad ku dhacday aad qaranka meel kaga dhacday kadib waxa ila soo hadlay qaybta wasaaradda oo agaasimuhu ugu horeeyay wasaaradda warfaafinta waan ka kulanay ana ku ixtiraamaya ballantii wasiirka agaasimaha guud iga timi oo si sharaf loo itigiis loo sharci leh oo wanaagsan aan ugu la kulmay xafiiskiisa muddadii uu ii qabtay iyo waqtigii uu ii qabtay ballanta markaan u tagayna wuxuu igu hanjabay oo uu jawaab igu siiyay Facebook-gaaga waxaan aad soo dhigasaa ma ogtahay inuu yahay khalad xeerna uu ku qabanayo waxaan ku leeyahay mood mahadsantii ma dhamaysatay hadalkii kadib markuu uu dhamaystay aan anigu jawaabtaydii siiyay maxaad igu haysataan ku uri sawirka gudoomiyaha ayaad soo dhigtay xusbi ayaad si aad u taageeraysaa bareera adigu amar taagleen waxaan ku ma dhamaysatay ha
xeerka aniga ay qabanayay aad igu ganaaxaysid igu haysatid facebookayga anigu da inaan madaxweynena maan caayin qarana maan caayin qaran jiritaanka Soomaaliland kama soo horjeesanay xeerka aad hordhigashay aad igu ganaaxaysid maxaan ku jabiyay baan ku wariyaa dad igu qabanaya de facebookayga ma mid anoo shakhsiyeed iyo page-kayga aanu leeyahay aragtideeda iyo xorkayga aan ku cabirayo iska tag witir aniga taas noo taalaabi guuri waa si xawad maxasanta aday ku taalaabaan kuri waan iskaga soo baxay waxa ila soo hadlay xalay oo ahayd habeenkii ii xigtay ee aan shaqadayda anigu aan qarankayga waajibka igu lahaan gudanayay in qaybta aniga aan hoostiga maamulkaan hoostago inuu amar aniga ay soo siiyo ah nimco shaqadii aniga amar madaxdii aniga iga sareysay wixii ana ay soo siiyeen in aad nimco gaarsiiso in shaqadii laga joojiyay waxaan dib ula xiriiray in qaybta shaqadii shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee u qaabilsan waxaan ku warqada aad igaga eriday dacadeynteedii baan ka rabaayo ileen afka kama ihi inay yar oo aabaheed adbinaye warqadeedii cadeynta sharciga wadankan qaranka waxa yaala sharci baa yaala qaynuun baa yaala maxay wadada lagu kala hogaye isii baan ku warqada cadeynta warqada cadeynta ka baahan aad igu eriyasaan ileen shaqadeeda awoodida aad u sheegan sida iga joojinaysan marka facebookan ku wada hadlana anaga buuriyo anaga iyo agaasimihii iyo intayada xafiiska iskula joogtay waxaan go'aan ku gaarnay in shaqada aad eriskaga tahay in hay'adda shaqaalahana warqadaada aan u gudbinay marxabiyo gudoon baan ku uri saasan anagu maamulka igu aan isku kay war dambeysay hadaba waxaan ku sheegayaa maxamed yuusufow hadii tan amar taaglayn iyo karbaash iyo kibir iyo taagtaagsi la iskugu samaynayo oo maxay toolay kibir qofka iyo adiyad iyo waxaan xeer aan qabanayn single iska gelinayo horta in cali koore wasiirka ku maamulay u shadabada kala dhaca ayaa maxay toolay oo qarankani xeerkiisa sharcigiisa uu qaban lahaa gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye khaliif ee codka aqlabiyada ee saxda deegaankiisa dalkiisa ay ku soo doorteen ay maxay toolay kaga raali yihiin dalkiisa iyo dadkiisa cod kartii aqliba ku soo baxay ee odaga saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadii maanta TV-ga qaranka uu ka caayay wasiir Salebaan Cali Koore isagoo aanu arka inuu xeer jabin tahay hadii cid xeer lagu karbaashi cid xeer la dhacayo oo cid xeer uu qabanayo oo maxay toolay waajibkeedu tahay Salebaan Cali Koore xeer qaban lahaa mid baan ku sheegayaa la yaabna mid Maxamed Yuusuf Salebaan Cali Koore inuu dhagada dabada kala dhacaya tahay oo la yaamatiyo kula yaabi maayo ana dhagada ka qaadan maayo aniga la dhacdo kibri adiyad aad ila soo doonatid waxaan ka rabaa xeerka shaqadayda joojinay ee TV adigaga joojisay TV-ga anoo shaqaale barmala iyo awoodda iyo kartida inta leega ku gaarsiisay in aad shaqadayda joojisid adaa cadeyn doona waxaana ka rabaa xeerka dhigaya shaqaalaha Facebook isticmaala ee xorta ah ee muwaadinka odaga saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Khaliif baad sawirkiisa soo dhigto waxaan ka joojinayaa shaqada xeerka aniga aad igu talisid ee aniga ay qabanayaan waan kaaga fadhiya hadii cid xeer qabanaysi dalkan cabudun iyo xeer iyo sharci uu qabanayana waa ka jira garsoorkeena dalkeena qof walba aqoon buu leeyahay waynu naqaana in cali koorana mid baan leeyahay waxa ka khaldan shaqadii uu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dalkeena ku soo igmaday hogaanka ummadda madaxweynaha mucaarad iyo muxaafid madaxweynaheena mudane Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaheeni lama diidana mucaarad iyo muxaafid isaga madaxweyne ah ummad buu ku soo doortay Salebaan Cali Koore uu ku yiri ummad iyo institution maamul buu ku yiri bal waxaan ku xasuusinayaa hadii aad adigu isdhaafsan tahay wadankeena sanadadii ugu dambeysay COVID-19 baa haystay oo amarda Ilaahay ku yimi lacagtii ugu badneed ee wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta ummadda hooyada ballimataani bahadhamal degan lagu wacyigelinayay idaacadii qarankaad ogto oo fadhida oo kaaga baahan in maanta hooyada aad wacyigelinta inaad gaarsiisid xanuunadii COVID-19 laba waaweyn baa dalkeena qayb libax la ka qayb qaatayo wasaaradda caafimaadka ku mahadsantay uu hagar baxday shirkadda Telesom baan ogno hooyada dib hadhaman ay ka dhageysanayso kaarkeeda Telesom farinta caafimaad bal wasiir baa madaxweynaha ku magacaabo ummad baa lagu magacaabo mas'uul baa tahay hantidii qaranka ee ummadda lagu yiri u shaqeey halkay martay barnaamijyadii ugu lacagta badnaa budgetkii ugu lacagta badnaa ee hay'adaha ku soo gaarsiiyeen ee ahaytii maxay toolay wacyigelinta tii maaliyadda ka soo ugu soo dhacday wasaaradda halkay ku dameysay idaacadii qaranka ku baahan oo fadhida maanta oo ogtahay tahaysata oo maanta aan wacyigelin aan haysan dalkeeni
hooyada haw degan bari degan galbeed degan ay kaaga baahan tahay marka waxaan oran lahaa de Facebook in lagu mashquulo profilkeeda waxa uu qurux badan madaxweynuhu wuxuu idin amray in ummadan daacad u noqotaan aad u shaqaysaan taasaana idin khusaysa maxaadiisuna waxaan kugu celinayaa laba mid oo iskaga ka khaldantay mar labaad in adigu madaxweynuhu ku soo magacaabay shaqo qaran ummadan ku yiri institution wasaaradda ku diray iyo inuu ku yiri inaan profilkayga laga soo magacaabay oo profilkani macashir doon lagu yiri sida miina baarista sida ugu wareeg anigu ma yeelayo waxa sharciga iyo dalka iyo dadkaba aan u oolin qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba guul iyo gacan wanaagsan iyo xeerka oo guuleystay mar walba qarankeedu yahay. Assalaamu calaykum.